maanta waxaan rabnaa inaan halkan ku sharaxno inner join. waxaan rabnaa inaan galno qaybta intermediate-ka. waxaan ka bilaabi doonaa jointiska. marka ugu horeysa waxaan u baahannahay inaan ogaano maxay tahay inner join. horta inner join waxay isku keentaa xogta ka timaada laba table. sidoo kaleetana labadaas table waa inay leeyihiin wax ka dhexeeya ama waa inay wax iska waafaqsan yihiin oo labada table ay jirto tablekan wax ku jiro oo tablekan kaleetana laga heli karo. marka tusaale haddii aad haysatid table koobad customers, table kaleetana aad ku haysid orders, labadaas table waxaa qasab ah in horta ku jiraan wax ay wadaagaan. table customers waa in laga helaa customer name ama customer ID. marka la imaado tableka orderska asagana laga helo customer ID ama customer name. markaan aan fiirino qaab practical ah, horta maxaan haysanaa file, waxaan ku haysanaa halkan excelka. maxuu yahay filekan? waa customers orders iyo products. waxaa rabnaa labadan table ee customers iyo orders inaan xiriir ka sameyno oo aan ka soo saarno wax muhiim ah oo nooga jiro, annagoo ka raadinayno marka koobaad wax ay wadaagaan. customerska imaane maxay wadaagaan? customers fiiro kuwa isaga laftirkiisa maxaa ku jira tablekan? waxaa ku jiro customer ID, customer name iyo city. orderskana maxaa ku jiro? order ID, customer ID iyo products. okay, meeshan wax ay wadaagaan nooga soo bix maxay tahay? customer ID. halkan orderska waxaa ku jira customer ID. markaan customerska u laabanana waxaa ku jiro customer ID. saas daraaddeed waxaan haysanaa wax ay wadaagaan labadan table oo join loogu samayn karo. soo laaba marka, maxaan u baahannahay annaga labadan table? danta aan ka leenahay maxay tahay? danta aan ka leenahay waxay tahay customerskan axmed, caaisha iyo cali waxaan rabnaa inaan ogaano inta quantity ay qaateen. okay, annagoo haysano labada table wax ay wadaagaan oo ah customer ID, aan imaano halkan markaa fiirino skemahana waxaan ku haysanaa saddexdii table oo aan kusoo aragnay excelka. maxay ahaayeen? customers, orders iyo products. mar kaleet waxaan ku haysanaa halkan waa kuwana customers, orders iyo products. maxaa u baahnaa marka? waxaan dhaynaa select. maxaan dhaynaa customers. waxaan rabnaa customers dots aa leedahay. customerska maxaa ka rabtaa? customerska waxaan ka rabnaa customer name aan ka rabnaa. customer name ayaan ka rabnaa. aan dhahno aan sii soconno. okay, orderska haddana tegaynaa. orders aa dhahno orders maxaa ka rabnaa isagani? orderskana waxaa ka rabnaa quantity. inter dhamarka. okay, pagekana imaanaynaa. waxaan dhahaynaa from, waxaan soo qaadanaynaa tablekan customers. aan soo qaadano customers. okay, haddana inter aan dhahno. markaan waxaa sameynaa joinkaan sameyno magaciisa waxaa loo yaqaanaa inner join. okay, inner join ayaa loo yaqaanaa. okay, tablekan customerska waxaan join kula sameynaynaa oo aan xog kasoo qaadanaynaa tablekan products. marka inner join markaa qortid waxaa qoraysaa tableka aad rabto inaad xogta kasoo qaadato ku lamaanaysid tablekan kaleeto aad haysatid ee customerska. marka wuxuu noqonaa orders. okay, inter aan dhahno marka on aan leenaha. marka halkaa waxaan usoo laabanaynaa. waxaan haysanaa customer nameka iyo waxaan rabnaa inaan helno customer nameka iyo quantity-ga. customer nameka waxaa laga heli karaa qaybta customerska, halka quantity-ga laga heli karo qaybta orderska. markaan halkan joogno waxaan rabnaa marka xiriirkan labadan table ay wadaagaan muxuu yahay? wuxuu yahay qaybtan customerska waxaa laga heli karaa customer ID aan ka rabnaa. customer ID. okay, sidoo kaleet walaa dhahaynaa orderskana waxaa ka rabnaa isla sidoo kale waxaa ka rabnaa customer ID, sababtoo ah labadaba waxay wadaagaan customer ID. intaa markaan haysano aan fiirino maxaa noo soo bixi doona? excuse aa dhahan marka. excuse markaa dhahna waa kana customer name iyo quantity noo soo bixeen. customer nameka waa kuwana magacyada customerska. quantity-gana customer walba inta quantity uu sameeyey. axmed hal quantity uu sameeyey, caaishana 2 quantity, cali yaa ugu badan 3 quantity uu sameeyey. hadda waxaa rabnaa markaan inaan sameyno multiple oo aan saddexdan table hal mar aan fiirino wax ay wadaagaan. waxaa isweydiinaynaa saddexdan table horta wax ay wadaagaan intaan fiirinin saddexdan table annaga hadda maxaa ka rabnaa? okay, saddexdan tableka waxaa ka rabnaa customer name. tableka maxaa ka rabnaa isagani? waxaa ka rabnaa product name. okay, waa tablekan products waxaa ka rabnaa product name. halka sidoo kaleeto aan rabno inaan helno
price-ka. waxaan rabnaa inaan helno customer name-ka, product name-ka iyo price-ka. saddexdaas inaan helaan doonaynaa. okay halkan aan imaano marka aan dhahno select. okay select waxaan dhahaynaa, waxaan fiirinaynaa tayballadan horta maxay wadaagaan. waa inaan su-aasha ka fikirno. tayballada kuwa waxaan dhahaynaa waxay wadaagaan customers. waxaan ka heli karnaa customer name aan ka heli karnaa halkaas. customer name comma. okay sidoo kaleeto products intaan u gudbin. okay aan fiirino products laftirkiisa maxaan ka heli karnaa. products maxaan ka heli karnaa isagane. productsna waxaan ka heli karnaa product name. product name waxaan rabnaa customer name-ka iyo product name-kiisa. okay comma aan sii dhahno. sidoo kaleetana waxaan product mar kale ka rabnaa. products mar kale waxaan ka rabnaa price-kan ka rabnaa. dot price aa dhahaynaa marka. price. okay halkan aan imaano marka. inner join intaa gaadhin waxaan kuwa select dhahaynaa. ana aan dhaho from waxaa leenahay kuwa waxaa noo soo qaadaa tableka customerska. inter aa dhahaynaa mar kaleeto. waxaan sidoo kaleeto u baahannahay inaan sameyno inner join. inner join inaan sameyno u baahannahay. inner join maxaan ka sameynaynaa tablekan customerska oo aan haysano aan waxaan join isla sameynaynaa tablekan orderska. okay orders comma aan sii dhahna marka. okay on ayaan leenahay. okay customers maxaan haysanaa marka. customers iyo orders maxay wadaagaan waa meesha muhiimka ah. customers iyo orders maxay wadaagaan aan ka fikiraynaa. customers dot aan dhahna iyo orders waxay wadaagaan customer id wadaagaan. haddaaya cashir koobaas aan kusoo aragnay waayaba. marka customer id ayaan leenahay. waa inuu limid ahaadaa qeybta orderska oo sidoo kaleeto ee ku jirta asagane customer id. customer id. okay waa sii soconaynaa marka. weliba waxaa soconaayo inner join kaleeto oo ah tableka saddexaad oo aan rabno inaan halkan soo gelino oo nooga jiro price-kii iyo product name-ka. inner join aan dhahaynaa marka haddana mar kale. inner join markaan dhahno waxaa u baahannahay inaan soo qaadano tableka productiga. products inter aan dhahno on ayaan leenahay markaan. okay markaa maxaa rabnaa marka. markaan yaa wax wadaago waxaa wax wadaaga orderska iyo productska. marka waxaa leenahay orders aan soo fiirina marka orderska iyo products maxay wadaagaan. orderska ka waxaa ku jiro product id. halkan product id ma la heli karaa asagani. okay halkana product id aa ku jiro. marka waxay wadaagaan markaan product id. okay dots waxaa dhahaynaa marka product id equal waxaa leenahay qeybtan productska asagane maxaan ka heli karnaa. productskana waxaa ku jiro oo ay orderska wadaagaan product id kale saan soo aragnay product id. okay su-aashiin sidaan ku dhamaystiran tahay. saddexdan table waynoo dhamaystirmi doonaan sababtoo ah waan join garaynay. kan customerska waaye, kan orderska waaye, kana productska waaye. saddexdan table marka waxay wadaagaan waa aragnay oo orders iyo customers waxay wadaagaan customer id. halka orders iyo productsna ay wadaagaan product id. halkaas waxaa ka heli karnaa marka customer name-ka, product name-ka iyo price-ka. okay aan xq dhahno marka saan aragno xogta noo soo baxday. okay sidaa ujeedin waa kana waxaan haysanaa customer name axmed, caaisha, axmed kale iyo cali. halka product name-ka aan haysano ay gateen uu yahay laptop, phone, camera, table. lacagta ay ka bixiyeen maxay tahay 800, 500, 400, 600 tusaale ahaan soo ma. okay hadda inaa fahanteen rajeyna. cashirkan intaas ku saabsanaay waxaan fiirinaynay qaabka loo isticmaalo inner join. waxaan rajeynaa cashir waqtigiis inuu kooban yahay. sidoo kaleetan wax badan aa ka fahanteen. channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar. waa mahadsantihiin. aniga waxaan ahay cabdikaaf enen. nabadgelyo.